السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك وحوران جلالك dadweynaha YouTube dunidan aynu joogno ayaa waxa nagula nool dad taajiriin ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu deeqay lacag waxa jira dad malaayiin dollar ku bixiya oo ku iibsada waxyaabo aan nafci u lahayn xagga dhinaca kalena ay dunida ku nool yihiin dad ay ku adag tahay inay helaan biyo nadiif ah oo cabaan iska dhaafe ay biyo uskag ah oo dhintay ay ku helaan si adag ku xidhnow janalka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir حامد بن عبدان النهيان وميد كميدة أفراد قويسك حكومة أبو ظبي نينكن أيا سيدو كلام وحا وكميدة الشخصيات كأوجود تاجر سن عالمك حتى نينكن أيا وحا وليميد فكرة عجيبة أو إنده عالمك سيجار أو سوجيدتي كدي مركو قوان صدي إنو يبسدو جسيرة دان أو ساكا خاصوا intaasi waliba kuma uusan eekaan oo waxa uu dalbaday in jasiiradaas lagu xardho magaciisa oo ku qoran far Laatiin ah oo aad u waaweyn iyadoo xuruufta dhan loo qoday godad waaweyn oo biyo fadhiisto xuruuftan ayaa waxa loo qoray hab farsamaysan oo adag tahay in la masaxo iyadoo isla markaana uu ku bixiyo kharashaad badan muhiimadda ka damacsanana waxay ahayd in magaciisa laga akhrin karo dayaxa dushiisa iyadoo isla markaasina uu qoraalkaasi noqday qoraalka kaliya ee hawada sare laga soo akhrin karo guriga lagu dhisay halka bilyan ee dollar waxa uu go'aansaday bilyaneerka dalka Hindiya ugu taajirsan ee lagu magacaabo Mukesh Ambani oo ay hantidiisa kor u dhaafayso 840 bilyan oo dollar ayaa waxa uu go'aansaday inuu hantidiisa ku bixiyo dhis guri isaga khaas u ah gurigaasi oo ah fooq aad u dheer oo ka kooban 27 dabaq dhiskan ayaa markii la dhisay waxa ku baxay kharash gaaraya 1 bilyan oo dollar dhiskan ayaa gudihiisa waxa ka shaqeeya in ka badan 600 oo shaqaale 2013 ayaa shirkadda lagu magacaabo Toilet Paperman oo ah shirkad Australian ah oo soo saarta waraaqaha loo adeegsado musqusha ayaa waxa ay soo saartay nooc cusub oo kamid ah waraaqahaasi kaasi oo uu badankiisu ka koobnaa dahab shirkaddan ayaa hadaba waxay ku tilmaantay noocan cusub in uu jilicsan yahay isla markaana isticmaalkiisu una dhib badnayn loona isticmaali karo sida noocyada kale caadiga ah hadaba farqiga u dhexeeya noocan iyo noocyada kale caadiga ayaa waxa uu yahay noocyada kale waxa uu ka qaalisan yahay 1,367,000 oo dollarka Mareykanka ah kuma nadiifinayo in ka badan intay kuwa kale ku nadiifiyaan hadaba ma kula tahay wax noocaas ah ee qiimaha inta ay la ku fadhiya in la iibsanayo dabcan waxa iibsaday dad aad u tiro badan qaarkood ayaa u iibsaday si ay u isticmaalaan xagga qaar kalena ay u iibsadeen inay dad kale hadiyad qaali ah uga dhigaan bal fiiri khasaarada inta leeg dadkaasi waxay ugu tala galeen kharash ka badan 1 milyan oo dollar in ay suuliga ku shubaan ninkan ayaa marka uu sameeyay waxa uu hubay isagoona wax shaki ka qabin inay iman doonaan dad ka iibsan doona lacagta inta leegna ku bixin doona ugu dambeyn aad iyo adigu maadsan taawashadiina intaasi ayuu maanta barnaamijkeenu ku eegyahay intaynu barnaamijyada ma isugu doonaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ku xidhnow janalka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir